waxaanu soo galnay xerada BSta xorriyaddeedaan ku soo galnay iyadoo oo nala ku yiri waxaad weeraraysaan ciidanka BSta Puntland sidaa markay xaaladdu nagu noqotay waxaanu dooranay inaanu ka soo baxno difaaca oo xorriyaddeeda ku nimaano ciidankayaga BSta Puntland waxaanu nahay 86 nin oo ka tirsan ururka Gallayr ee ka tirsan goobta la yiraahdo Kalabayr iyo ururka Gamaadiid ee ka soo guuray magaalada Gaalkacyo oo loo keenay inay weeraraan ciidanka BSta Puntland ee gobolka Boosaaso ciidankaas oo 45 ay tahay ciidanka Gallayr ururka Gallayr 38 ay tahay ciidanka Gamaadiid ee qaybta mudug ayaanu hadda waxaan ku suganahay xerada BSta Boosaaso waxaan lagu kalifay waxaad weeraraan walaalihiin aad isku difaacatiin sidaa markay xaaladdu noqotay waa ka soo baxnay waxa uu ciidankayga difaac la soo gal waxaan ugu baaqaynaa dhammaan meel kasta ciidamadu joogaaniin ciidamada Puntland waa walaalo waanu wada shaqayn jirnay goob kasta aanu wada joognaa waa wada shaqaynaa meel kasta aan joognaa ma kala maarno wax kasta waxa weeye ama naga xumaadana waxa weeye ayaankan waxa weeye baalkan la yiraahdo ishageen saxan baa wax ku cuni jir wixii naga go'a kale wixii naga go'i jiray waxay ahayd wixii ambasaanada amba huba waxaanu ka taageeri jiray aad iyo aad waxa u qayb qaadan jiray ciidanka BSta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Salmaan Faarax oo ka tirsan ururka Gallayr waxaanu ku sugannahay xerada BS waxaanu ka soo bedelanay difaac Puntland waxaanu nimid difaac Puntland waxaanu calaashan ugu kalifay inaanu soo bedelano waxa weeye maamul xumo aanu xagga ciidankayaga ka tirsanay iyo macnihii waxaan u socon oo ciidankii walaalaha ahaa ee aan difaaca ku wala jiray iyo isku halka cadow aanu lahayn lana yiri ciidanka baa la dagaalamasan inta la ka soo qaaday Kalabayr waxaanu qaadan weynay nagu noqotay wax maqbuul ah weynana noqon weyday sida daraadeed baa laga soo bedelanay difaacii hore Puntland imika difaac Puntland baan joognaa ciidamada Puntland waa isku cadow bay leeyihiin meel kasta ay joogaan laba cadow ma leh hal cadow bay wala leeyihiin taarkad baa noo wala sawiran ina anaka la iska ka soo horjeediyana waxaanu qaadan karaa maaha waxaanu yeeli karana maaha waxa weeye taasaanu horta nagu kaliftay iyo maamul xumo anaka ciidanka dhexdiisa ka jirtay inaanu ka soo wareegno difaacii hore ee Puntland aanu daraawsheed imika aanu nimaadno difaaca BS waxa weeye walaalaha iyaga naga haray ee difaacyada daraawshaha naga haray waxaanu leenahay war ciidanka Puntland ama BS ahaado ama saara Soomaa ahaado ama daraawiisha ahaado ta cadow hal cadow bayna wala leenahay yaan inaka la iska soo horjeedin oo inaka leena ku guuro maaha ka dhimalaya iyo ka dhaawacmaya iyo ka ilaaheerkiisa walaalkiisa dilaya waa inaga iyo ka saaxiibkiisa dilaya waxaan leeyahay arinta nin injoo kugu doonaya yuunan macnihii yuuna dalka burburin dalka inaka dadkiisa way nahay ciidankiisa way nahay hadday macnihii aynu inaku burburino inaga waddanka iskale maatada iyo caruurta qaxaya waxa weeye waa dadkeennii nin walba askar iyo naag iyo reer iyo caruur baa u degan suuqa وهاي أودجن ومضى ودل وولالهن عسكرية كل عدوجا يا كل اللي ماله يشري دينا لجوس هر عبيه والجوده كلا تقالن ونين إن شاء دوريا ومعنيه أما إصلاح البلغة قاضية أو لجو جوريا ودب كبقية إنه يا عسكري ولا الكايا وكار كنا ماشي كوبتشتو حاولنا له هلا في صدار انتها عيانا عيدنا السياسة مقلو أرنت آدي لوجا فرصة بسم الله الرحمن الرحيم إذن كوا سود ويننا ووراها إيه ويلكم بالليل هاي سود وهذا بالليل هاي دلكوا دلكيني كأشغال سنة كواسمد سود وهذا بالليل هاي قاعد فرن بالسود ويننا حرض ومشي حرضيني إذا كان ما أنت نويمي ciidamadu haday goostaan meel kale isaga goosan jireen laakiin waxay ka soo qayb galeen
xero buntland bay ka soo goosteen xero buntlandna way joogaan tay ka yimaadeen waa xeradoodii tay yimaadeenna waa xeradoodii aad baan u soo dhaweynaynaa asi aad iyo aada baan u soo dhaweynaynaa ciidankii aan wada shaqayn jiray oo waxa weeyaan wada shaqayn jiray weeye waa ciidankayagii meel kastoo ciidan joogana waa isku mid waa isku naf ciidanka buntland waa isku naf waana isku mid waa isku gacan waa isku cadow waa isku hadaf wax laba mawduuca ma leh iskuna dhiman mayaan kuwa noo yimina waan soo dhawaynaynaa kuwa kaleetoo hadday noo yimaadana waan soo dhawaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan soo dhawaynayaa wiilashaan walaalahaya waa ciidamadii nala shaqayn jiray oo muddo dheer aan wada shaqaynaynay meelo badan aan ka wada hawlgalnay dhib badan aan isla soo marnay buuro badan iyo rafaad badan iyo guura habeen aan isla soo jirnay aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa boqolkiiba boqol in maanta innaga taargal lasaga kendhigo oo cadow isku noqonnaa dee wax suurtagala maaha taasna waxaa caddayn oo sidaa noogu timaadee kuwa kaloo aynaga maqanna waxaan rajaynaa insha allah bismillahi kariim waqtiyada ugu dhow inay fahmaan ujeeddooyinka laga leeyahay hawlahan isku wankaan jebin karo saacadda garbaa igu taagantii baan jeclahay kuwa kale inay usoo istaagaan haddii lahaydmo idinkana waan soo dhawaynayaa meeshu waa meeshiinnii waa xaruntiinnii waa ciidankiinnii waa isku garbayeenna waa sidaan wada shaqayn jirnay haysoorannina meel kalaa timaadeen dalku waa dalkiinnii xerada biyaasna waa xeradiinnii muddo dheer baan wada shaqaynaynay ciidamadan hal taargad baan lahayn hal mowqif baan lahayn hal meel baan ku wajahan jirnay